Assalaamu calaykum kusoo dhawaada casharkeena casharkii kan koreeyay wuxuu inoo joogay waxa loo yaqaano conditional statement anagoo kusoo qaadanay if conditions anagoo soo qaadanay if iyo else iyo casharadaas marka casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa waxa loo yaqaano data structure maxaa la marka data structure-ka waa habka ama wayga loo keediyo sidoo kale loo organize gareeyo data efficiently marka programming la joogo marka data structure-ka wuxuu door weyn ka qaataa habka datada loo keediyo ayuu ka qayb qaataa waxa usoo barnay variable usoo barnay marka data structure waxaa naga caawinaya marka variable-ka iyo hal qiimo ayuu keedinayay sida age oo da'da user ama name oo kale magacii haddaan u baahanaa multiple value inaan ku keedino hal variable marka waxaa u baahanahay data structure ayaan u baahanay sidoo kale data collection waa la lahaa waxaa jira marka la joogo Python waxaa jira waxaa jira for collection ayaa jira oo data type oo noocyada daatooyinka ah marka la joogo Python programming waana kuwana marka waa list tuple set dictionary mid ayaan arki doonaa maanta marka waxaan qaadan doonaa list ayaan qaadan doonaa list muxuu yahay marka list marka la joogo waxa weeye waa ordered ayaa loogu qeexaa marka la qeexayo listiga sidoo kale order waa arki doonaa wax laga wado sidoo kale waa changeable waa mid la bedeli karo sidoo kale collection of items kaasoo marka soo qaada items collection gareeya haddii aad u baahan tahay tusaale kale users oo kale inaa hal meel isku keento hal variable ama student id oo kale ama students ama emails hal meel isku keenayo lagu keenayo ayaa loo isticmaalaa marka collection of items ayaa loo isticmaalaa characteristic uu leeyahay astaamaha uu leeyahay ama inuu arki doonaa ordered waa dadka ku qeexinay waxaa laga wadaa waa order waa dalab waaye si u kala horeeya marka dalabkiisa inta badan dalab marka aragno wuxuu leeyahay meelo ka bilowda qof koowaad qofka labaad qofka saddexaad saas u socdaa qofka koowaad ay soo joogo qof afraad hadduu imaado lagama hormarinayo qofka koowaad waa si usoo kala horeeyeen marka taas marka list marka waxaa arki doonaa kuwo kale oo unordered ah arki doonaa laakiin list waa ordered waaye wilna changeable lama bedeli karo marka orderkiisa usoo kala horeeyay ayuu u shaqeynaya sidoo kale listiga astaamaha uu leeyahay waa mutable waxa laga wadaa can be modified waaye waa la bedeli karaa waxaa la bedeli karaa tusaale kale listiga waxaa lagu soo xareeyay xogta magacyada tusaale kale user variable oo kale list sameynay waxaa noogu jira magacyada userada marka user tusaale kale maxamed oo kale ayaa noogu jira listiga maxamed waa la update gareyn karaa hadduu cilad ku imaado magac kale laga dhigi karaa marka magaca waa la bedeli karaa edit ayaa lagu sameyn karaa laga wadaa marka listiga edit ayaa lagu sameyn karaa marka mutable waa waxaa arki doonaa kuwa immutable oo la bedeli karin si xogta loo soo geliyaa sidoo kale allow wuxuu ogolaadaa wax la yaqaan duplicates tusaale kale xog isku mid ayaa soo geli karto xog isku mid ayaa listigan soo geli kara waxaa arki doonaa kuwa kale oo listiga ka mid ah oo data structure ka mid ah oo aan ogoleyn wax duplicates oo soo noqonayo marka sidoo kale wuxuu leeyahay index ayuu leeyahay index waa arki doonaa qaabka u shaqeeyo indexka koowaad index waxa laga wadaa xogta marka listiga la soo geliyo si loo aqoonsado shay kasta wuxuu leeyahay unique index uu leeyahay ama si kala dad kugu shay id ayuu leeyahay mid kasta wuxuu leeyahay unique address ayuu leeyahay kaas marka addresskaas marka waxa lagu qaxaa index marka shayga koowaad oo orderka soo galo oo listiga koowaad wuxuu qaadan doonaa 0 ayuu ka bilaabi doonaa aniga tiradeena caadi waxaa dhahnaa 1 2 marka waxaa tirinaa 1 qofka koowaad qofka labaad soo ma wuxuu ka bilaabaya qofka koowaad waxa waa eber wuxuu taagan qofka koowaad qofka labaad wuxuu taagan hal qofka saddexaad saas u soconaya marka 0 ayuu start ka bilowdaa indexka sidoo kale listiga maxaa loo isticmaalaa marka listiga waxyaabaa inta badan loo isticmaalo waxay tahay in lagu keydiyo ama store gareeyo collections of data oo collection ah hal meel laisku keenayo ayaa loo isticmaalaa in lagu shubo markaas searchas waxaa kamid userska oo kale in meel laisku keeno product oo kale productyo haddii system la diyaarinayo productgaas oo kale list loo sameeyo lagu soo shubo waxyaabahaas oo kale marka aan aragna marka qaybteeni koodkeeni maanta cashirka ku qaadan doono waxaan arki doonaa listiga maanta si guud waxaan u kofar gareynaynaa listiga mid ayaa markaa u qaadan doonaa marka diiradda listiga ayaa xoogga saari doonaa maanta halka marka waxaa noo qoran marka list horta maxaa la listiga waxaa loo isticmaalaa use waxaa loo isticmaalaa to store multiple items in lagu keediyo value badan ama items badan single variable hal variable hore waxaa soo qaadan variable
hal cab ah oo hal qiimo lagu keedinayo hagada variable-kan wuxuu ka dugan yahay hadda tusaale useris user wuxuu ahaa hal cab Axmed hadda kan waxa useris waa variable waaye hal variable waaye halkan muxuu hayaa marka intaasoo user ayaa ku kisan Axmed Maxamed Xasan Caasho mooson way sii badan karaan ilaa intaas waxba sii noqon karaan user kana lagu keedinaya marka variable user kaas marka waxay noo ururinaysaa marka hadhow marka la macaamilano database APIs waxyaabas in aan ku shuban karno marka single variable halka aan sameyn lahayn maanta dhan user 1 Axmed user 2 Maxamed user 3 aan sameyn lahayn waxa waaye listiga ayaa marka noo qabanaya marka listiga syntaxka uu leeyahay waxa waaye calaamadan waxaa la isticmaalaa square bracket ayaa ka hormarinaysaa square bracket ayaad ku xiraysaa sidoo kale value-gana waxaa loo kala qaybin doonaa value hadda waa string waaye waxaa loo kala qaybin doonaa calaamadan comma hadda value koowaad stringa waa kan sidoo kale comma hadda wax kale kusii daraysid comma hadda kan oo kale wax kusii darayno waxaa leenahay comma stringkay kala furaynaa kadib waxaa leenahay cumar oo kale saasoo kale marka saas uu sii soconaya markaas syntaxkiisa waa noocan listiga sidoo kale keliya string kama noqon karo wuxuu noqon karaa number oo kale tusaalahaan oo kale haddaa dhahno phone tusaalahaan oo kale haddaa dhahno okay oops phone variable oo noo soo kale phone saddaa dhahno nambarada noo soo keedinayo waxaa la markaa listiga calaamadiisa waxay ahayd square bracket kadib marka aad rabno hadda kan waxa waaye string aad rabno integer ka dhigi karnaa oo integer ma u baahno in aad string ay geliso caadi ay qoraysa so ana kale waxa leenahay 61 waxaanahay 186 oo kale comma ayaa la sii leedahay sidoo kale waxaa leenahay 61 okay 00 aan leedahay ani saas u sii wadaysaa markaas inta xabo aad rabtid ayaad gelinaysaa 63 taasoo kale ayaa u sii wadaysaa marka listiga noocan wuxuu noqon karaa marka ani data type ayuu noqon karaa waxaa jiri kara mid collection ah oo soo qaadin kara labadaba kaliya hadda sida variable-ka integer variable-ka caadi markuu ahaa waxaa ama phone hal caba ku keedin user hal caba hal data type kan multiple data type ayaa ku keedi kartaa tusaalahaan oo kale haddaan dhahno waxaa leenahay product oo kale aan leenahay product oo kale waxaan leenahay product oo kale aan leenahay variable marka product variable aan dhahno su'aalo kale kan waxaa gelinaa list waxa rabtid su'aalo kale kan waxaa dhigi karnaa waxaan leenahay mobile oo kale laakiin wuxuu rabaa inaan gelino string wixii string waa inaan gelinaa mobile oo kale another kan kale comma markaan dhahno waxaa geli karnaa string oo integer ka dhigi karnaa so 23 sidoo kale kan kale waxaa ka dhigi karnaa boolean oo soo warana true any data type-kii ayuu qaadan karaa oo kaas integer oo ahaa boolean oo waxaa leenahay float ani waxaa hadda meeqa data type halkan variable meeqa data type ayuu hayaa oo data kala nooca ku jirto kan waa string waa integer waa boolean waa float waa marka multiple ayuu qaadan karaa oo data ayuu qaadan karaa marka qasab ma inaa integer ay geliyo laakiin badanaa waxaa fiican in xogta si ay isku leedahay mid kasta inaa meel gooni u samaysid halkaas marka waxaa ku ogaanina marka in listiga qaabka loo qoro loo sameeyo inuu listiga u qaado multiple data type kala nooca inuu qaadin karo sidoo kale hal data type la geli karo anything data inay hosti garay karo listiga marka inaad soo daacati rabtid tusaale listigeena waa kana variable list saas u sameeyay user u baxsanay waxaa lana print waa soo daabaceena qaabkan u soo baxay hadaa fiirno waa kana listigeena list calaamadaas listiga lagu yaqaanaa oo square bracket xogta intaas ayaa loo soo daabacaya sidoo kale kaas marka halkaas ugu soo gudubno waxaa imaanaa accessing list items ka saa usoo access gareyno listigeena hore haddaa wuxuu hal mar uu soo daabacay haddaa halkan kora tagno oo dhahno su'aalo kale print haddaan dhahno users aan soo daabacno haddaa fiirino marka kuwan waran gareyn ayaga dhan saa u aragno haddaa users dhahno dhammaan listiga dhan ayaa naloo soo daabacay wixii ku jiro dhan haddaa rabo marka user kamid ahna bis inaan soo daabacdaa rabo
tusaale kale first user oo kale marka inaan soo print garay arabo waxaa isticmaalaya calaamadan oo saana halka users aa ka dhilayd calaamada square listiga furaysa kadib halkaas indexka ayaa sheegaysa indexka koowaad waxa waaye 0 indexka koowaad waxa waaye 0 saasa waxa loo soo dhacay Axmed halka kan labaad kan hadaa rabno dhinacan kala gadaal inaa kasoo daawacno hadaa rabno hadaa negative aa dhahdid listiga uu badan yahay xagga dambe inaa kasoo wadid aa rabtid negative ayaa isticmaalaysa kan u dambeeya hadaa rabtid inaa soo daacdid negative 1 hadaa dhahna hadda su'aalahan oo kale hadaa dhahna midka ku xiga su'aalahan oo kale print hadaa dhahna inaan soo daawacno caasho oo kale waxaa leenahay markaas users waxaa iska leenahay negative 2 daaran karena fiiri waxa dhacayo caasho waa kana marka user marka la qaadanayo hadaa rabtid inaad access gareysid dhammaan waa magaca userka u wacanaysaa waa lagu soo daawacaya haddii aad rabtid mid hadaa rabtid inaad soo daacatid waxaa isticmaalaysaa indexka uu leeyahay adresska uu leeyahay sababtoo kan wuxuu leeyahay 0 1 2 3 4 5 waa ka u dambeeya hadda aan rabno negative 2 aa dhehayna hadaa sida kala dhahno 5 hadaa dhahno weera asan soo koro waa soo daacaya waxa halka idin sheegay marka listiga hadda 5 waxa waa kana u taagay kan u dambeeya waaye hadaa dhahno negative 2 aa dhehayna kan ku xidhana 4 10 soo daacaya marka 10 daaran laba qaab soo daaci karna negative 2 aan gaagaal soo akhrino oo waxa waa negative 1 negative 2 kan waa markaas gaagaal hadaa minus kormaysid gaagaal soo akhrinayo 3 4 5 saas u wadaya marka waxa ogaana marka in hadaa uu canayso xogta qayb kamid ah inaad isticmaali kartid indexka inaad isticmaali kartid sida markaas u soo daacdo halkaas marka waxa ugu gudbinaa accessing by index marka listigan oo kale waxa lagu dhihi karaa waxa soo daacaa print gareysa xaawo oo kale isku day xaawo oo kale soo daawac adigoo u fiirinayo indexka loo isticmaalayo next marka waxa qaybta kale ku arkaynaa changing list items item horay in wax ka bedelno su'aalo kale halkan hadaa line koowaad keen hore soo ceshana saa aragno waxaa sameynayna listigeena kala u wacanna waxaan nahay users marka userskan hadda kan dhammaan aan soo print gareysnay waxaan rabnaa marka in aan bedelno marka hadda fiiri waxa dhacayo userska u wacno kuwa marka Axmed Maxamed userka listigeena caadiga hore aan kor ku soo sameysnay ay u yeernay waan soo daawacnay markaas dhamaan marka halkan waxaan rabnaa marka userski waxaan rabnaa inaan bedelno userka qayb kamid ah bedeli kartaa edit ku sameyn kartaa waxaan rabnaa inuu yahay listiga mutable wax la bedeli karo inuu yahay marka bedelaysid userka waxa u wacanaysaa userki indexkiisi user variableki kadib indexkiisi 1 indexka rabtay inaad bedeshid kadib waxa leenahay qiimaha aad ku bedelaysid value aad ku bedelaysid ayaa gelinaysa marka kadib waa soo daawacna mar labaad hadaa fiirno markan waxa waa hadda meeshan maxamed ayaa ku jiro index 1 0 1 kan waxa ku bedelna cali ayaa ku bedelna marka next hadana marka la sameeyno aan u wacno mid kale sa practice ka waragtaan marka waxa bedelaynaa su'aalaha kale xasan oo kala bedelayna xasan muxuu haystaa marka indexka xasan oo haysta maxaa way 0 1 2 ayuu haystaa xasan marka waxa leenahay 2 kadib marka waxa leenahay waxa ku bedelaynaa gelina markaas xogta ku bedelaynaa waxa leenahay faarax oo kale hadda ran gareeno waa kan marka xogteeni originalka soo daacana printiga mar walba soo kala koreekan meesha u koreyso waa hadaa dhigana printiga listigan wali wax laga bedelin waa laakiin markan waxba ka bedelnay kan 1ka ayaa bedelnay cali ayaa ka dhignay halka kan kalena sidoo kale aan ka dhignay sidoo kale faarax ayaa ka dhignay index 2ga markaas marka hadaa fiirno listigeena wuu isbedelay sababtoo tahay originalka hore ayaa wax ku darnay marka kan hadda print gareyno mar la soo ran gareyno waxaa arkayna meesha cali faarax in aan halka ku bedelno markasta oo aad rabtid listiga inaad bedeshid xog kamid inaad bedeshid waa inaad saas u wacdaa indexka inuu ugu yeerataa kadibna aad value ku bedeshaa halkaas waxaan u gudbaynaa listiga sidee changeable loogu sameeyaa value ku jira markaas su'aal marka waxaa isku daydaa cumar oo kale inaad bedesho cumar magaca ku bedeshid adigoo sameynaya change cumar inaad bedeshid kaas halkaas u gudbaynaa qaabka loogu bedelo listiga marka waxaa aadaya marka qaabka loogu daro marka listiga hore waxa u sameynaa inaan list kale xog kale aan ku darno xog kale inaan ku darno marka list wax loogu daraayo listiga waxa lagu daraayo waxaa lagu daraa inta badan end ayaa lagu daraa sababtoo hadaa waxaa sheegay inuu listiga yahay order waxa loo si usoo kala horeeyeen marka hore loogama dari karo dhexda loogama dari karo orderkaas hore loo qaatay
marka meesha u dambeysa ayaa loogu dari doonaa orderka su'aalahan kale hadda intaa ku darin aan list aan soo daawacan keeni print listigeena originalka hadda meeshuu maraya soo daawacana waxaan nahay users waa rangareena hadaa hadda rangareeno halka marka maxaa dhacaya marka users ayaa u wacanay waxaa isticmaalna functionka loo yaqaan append function aa lahaa userka imaw dot append waxaa laga wadaa marka add macni waa function u taagan ku dar u taagan waxaa lagu daraya markaas function gudihiisa waxaa u baas gareynaynaa oo parameter ahaan u dhiibaynaa stringigan hodan value ku jiro ayaa u direynaa kadib marka waxaa loogu dari doonaa xagga dambe adna mar labaad waxaa sameynaa insert specific position sababtoo maadaama uu yahay orderate oo xagga dambe kaga daraayo haddaa append aan dhahno waxaa dooran karnaa haddaarna meel cayiman inaan ku dhex darno haddaan rabno waxaa dooranaynaa users dot insert functionka lahay insert marka wuxuu leeyahay specific position ayaa lagu daraya positionka aad rabta listiga ayaad meesha rabta dhigaysaa markaas qofkan ugu dhex daraynaa xogtan ama valuegan marka waxaa meeshan dhigaynaa marka dot insert markaa dhahno isagana functionkan waxaa wuxuu qaadanaya marka laba parameter ayuu qaadanaya u baas gareynaa kow waxaa leenahay labo oo ah indexka labo waa 0 1 2 kan labaad hortiisa la gelinaya markaas laguma bedelaya hortiisa ayaa la gelinaya kadib marka waxaa leenahay print soo daawac halkan waa print wuxuu imaa waa print caadi waxaan bedelayo saa u aragna wixii cusbaa inaan halkan kusoo daacano marka waa rangareynana saa aragna isbedelka kow maxay tahay original listigeeni marka hore waa kana marka axmed cali faarax saan oo kale u ahaa after adding new user marka user ku darnay print kana soo daacana saa u kala ogaana labadii listi kadib marka axmed cali haddaan fiirino meesha waxaa waa sahra ayaa la soo geliyey mida faarax meesha ahayd waxaa laga hormariyey sahra waayo kana dhaca marka sidoo kale xagga dambe waxaa kaga darnay hodan yaa ku daray kan waa append markasta waxaa waa xagga dambe ayuu kaga daraa halka insertina uu rabo inaa indexka aad dooratid kadib marka aad ku dirtid hadda meeshan aan bedelno aan dhahno index 1 haddaan dhahno 1 aan dhahno jimcaale haddaan dhahno jimcaale maxaa dhacayo marka 0 1 meeshan cali hortiisa lagu dari doonaa jimcaale sidoo kale hadda kan hodan mar labaad dhahne haddana hodan kale la soo geli doonaa duplicate wuu ogol yahay rangareyna markan haddaa fiirno user indexkiina hore waa kana meesha hore aa joognay hadda marka waxaa ku darnay jimcaale cali markan waxaa ka hormarnay 0 1 u ahaa 1 maadaama adresskiisa u ahaa maxaa ka hormarnay markaas jimcaale ayaa kusoo daran hortiisa marka labadan qaaba ugu dari kartaa xog listiga appendi waa inay ogsoonaad mar kasta xagga dambe ayuu kaga dari doonaa halka insertina uu kaaga baahan inaad aa sheegtid meesha aad kaga daraysid adigoo sheegaya adresska aad rabtid meesha aad rabtid oo valuegan uu soo galo adigoo fiirinaya markaas meesha aad dhigaysid marka indexkeeda markasta halkan indexka aad dooratay hortiisa ayuu dhigi doonaa hadda 1 aan doornay 1 meeshan waaye 0 1 horteeda ayuu soo gelay jimcaale hadda booskii cali waxaa qaatay jimcaale qaatay 1 cali wuxuu u durkay 2 ayuu durka markaas waxuu gudbaynaa marka qaabka loogu daro listiga qaabka wax loogu daro adagoo isticmaalaya labadan function oo loo yaqaan append iyo sidoo kale adagoo isticmaalaya insert waxaa u gudbaynaa markan remove listigiisa wax ugu saarno waxaan soo baranay listiga inaan wax ku dari karno sidoo kale inaan hadda wax baranaynaa qaabka loogu saaro listiga marka listi wax ka saarayno waxaan isticmaalnaa remove function ayaa isticmaalaynaa append function waxaa inuu ku daro insert sidoo kale inuu ku daro halka remove waxay tahay inuu ka saaro hadda intaa wax ka saaran bilow hore soo daawacanaa sida listigan hore u aragno waxaa ka saarayna wixii ka baxa print waxaa leenahay users ayaa leenahay marka listigeena hore waa kan original listigeena meeshuu joogay waaye kadib marka waxaa dhacaya markaas users ayaa u wacnaynaa markasta users wax inaad ku dirtid markasta asaa u wacnaysa users kaa u wacnay dot remove waa la saaraya ayaa laga saaraya xaawo waa laga saaraya qoraalka si u qorayna u qoraya laga yaaba hadda meeshan small aa ka dhigtid xaawo xaggan capitalka ay tahay qalada dhacayo marka waa in si u qorayaan u qoraya qoraalka marka hadda xaawo ayaa laga saari doonaa listiga adaarna marka waxaa saari karnaa by index hadda kan wuxuu ahaa meeshii hadda magac ayaa doornay mayno
markan indexka dooranayna magaca ma dooranayna addresskeeda index ahaan aan dooranayna markan waxaa dooran value ahaan remove by value inaad dooratid value hebel ka saar haddaan rabno meeshan waxaa leenahay by sidoo kale by indexaa dooranayna indexkeeda sheegayna markaas halka marka waxaa soo daawacayna marka print remove userski la saaray ayaa halkan soo daawacayna isbedel ka dhaca aan fiirina markaas hadda fiir markaas indexkiina hore waa kana marka xaawo halkay ku jirtaa halkan ku jirtaa halkan ay xaawo ku jirtaa hadda fiirino marka xaawo marka hadda fiirino hadda fiirino listiga laba waa laga saaray listiga dama xaawo dhan kuma jirto xaawo waa ka saarnay zero hadda halkan doorno indexka rabnaa dooran karnaa soo hadda mar kale aran gareena soo aragno markan listi kale hadda halkan aan bedelno soo aan tira kale aan ku bedelno listi 1 hadaan ahno ama 0 ka bilaawda kan koowaad hadaan waxa baxay kana baxay kan comment iska saarno maadaama hadda xaawo ay ka baxday comment iska saarana kana tijaabina marka 0 hadda hadaan ahno waxa bixi doono meeshan jimcaale 0 jimcaale ayaa bixi doono mara jimcaale wuu bax marka hore jimcaale ku jiray hadda wuu bax jimcaale marka meeshan index ahaan aad dooran kartaa hadaarat by value ayaa dooran kartaa adoo isticmaalaya remove function hadaarat by index ayaa isticmaalaysaa indexki aad rabtid aad sheegaysaa markaas okay waxa uu gudbaya markan qaabka looga soo saaro waa barnay by index by name labadaba adigina tijaabi sidoo kale waxaa sameynaa markan waxa loo yaqaan sorting list inaan sort gareyno listiga suu ahbaysan sort ahaan inaan u sameyno alphabetical order inaan u sameyno waxaa isticmaalna markan halkan userka inta marka la soo daawacayna keeni originalkeena hore soo aragna isbedelka dhacay waxaa leenahay users ayaa leenahay waan gareynaa marka users dot sort adaan function kan sort waxa lagu dhex qoraayo function automatic asa aqoonsanayo sortingka oo sort gareynaya marka waxaan soo daawacayna marka sortingka isbedelka dhacay ayaa soo daawacayna waan gareynaa marka hore hadaa fiirina meeshan cali markan fiirsi u kala horeeyo fiiri original kan waa cali saar faarax hadda waa la hagaajiyay waxa la dhigay alphabetical order xarf ku xiga hadda b lama hayo c tana loo hagaajiyay marka xogtii waxaa lagu sameeyey qaab sorting ah haddaa marka xog badan aa haystid oo listi ah hadarta inaad sorti aa ku samaysid adoo isticmaalaya python habkan aa samaynaysa marka listigii inaad soo qaadatid kadibna functionkan sorti aad u samaysid hadda xogtii sorti ayaa lagu sameeyey saana ayay kusoo bixaysa hadda kadib alphabetical order ayaa laga dhigay markaas marka halkaas waxaa arkaya marka anagoo isticmaalana functionka loo yaqaano sorti anagoo isticmaalano inaan markaa sorti gareyno xogteen oo hagaajin alphabetical u hagaajin okay sidoo kale waxaa arkayna marka copy inaan xogta list copy gareyn karno list inaan copy ku sameyno listi hore u jiray ayaa copy gareynaa so halkan waxaa sameynay user cusub aa samaysanay list cusub aa samaysanayna listigii hore axarna list kale inaan ka copyeen ayaa rabnaa marka waxaa sameynaa variable cusub sameynaa variable loo yaqaano users copy oo baxsanay kadibna marka waxaa leenahay users waxaa u wacnaa marka userska hore ayaa u wacanaynaa dood waxaa leenahay copy functionkan copy loo ayaa u wacaynaa kadib marka waa la copyena marka print copy list ayaa isticmaalna marka hadda meesha tagno waa la copyey listigeena hore hadda waxaa haysanaa laba list haysanaa marka listii hore iyo listi kale ayaa haysanaa markaas ugu dambeyn marka waxaa imaanaa meeshan waxaa imaanaa listi wax loo yaqaano comprehensionka markaas wuxuu qabanayaa in la bedelo uppercase in loo bedelo so anga listi aa sameynay listi in uppercase u bedelo hadda meesha waxaan qornay list loo yaqaano uppercase userka listi hore waxaa ka dhigana uppercase ka dhigana marka users dot upper ayaa u wacnaa meeshan listiga cusub aa samaysanayna halkan listi aa furaynaa kan waa list cusub waa oo capital letters ah marka waxaa dhex gelinaa marka userkeena hore u jiray inuu capitalka user dot upper functionkan loo yaqaan upper ayaa wacanayna function kale waxaa jira sina lower la dhaho oo asina daartina yaryaraysid ark lower la dhaho gadaalka arki doonaa marka for loop waa ku dari doonaa for user in ku dar users ayaa la bedeli doonaa hadda arrin gareyno arkana sorry waxaa arkayna marka userkeena hore inaa all capital ka dhigno haddaaran hadda inaa lower inaa ka dhigno meeshan keliya waxaa ka dhiganaa lower waxaa ka dhiganaa markaas hadda aa bedelnay lower function aan isticmaalno hadda ran karayno all waa kana waa yareen marka functionka marka lower hadoo capital aa ka dhigtid lower ka dhigtid haddaa rabtid upper ayaa ka dhigi kartaa markaas marka halkaas waxaa bedelayna marka inaa comprehensionka bedelno inaa listiga bedeli karno upper lower inaa waxaas inaa bedeli karno markaas halkaas waxaa gudbaynaa marka listigeeni waxyaabay ugu caansanaa listigii ayaa halkaas ugu gudbaynaa waxaa kaloo hal mar ku daraynaa waxa loo yaqaano listiga list range waxa loo kana iska xidhno meeshaan amaanayna
هذا listigan أصلا أنا صوت معايا هذا رن مش كان listiga أنا قيب كمان صوت عنه هل عبا إير صوت أنا سمعنا إنك كسك وحاجة واحد لو يقال list ranger range واحد لا جرته حالنا users علينا هاي halkan index maadaama aan sheegin waxaan rabnaa su'aano kale hadda inaan soo daacano axmed ilaa xaawo oo kale inta bis inaan soo daacan rabnaa axmed ka bilow ilaa xaawo oo kale listigaas inaan soo daacan rabnaa marka waxaan isticmaalnaa marka kan maadaama uu yahay indexka 0 uu yahay kanna waxa waaye 0 1 2 3 xaawo 3 haysta marka xaawo inaan soo daacano markaan rabno waxaan leenahay ilaa 4 aan qoraynaa waxaan leenahay 0 kadib waxaan leenahay calaamadaas aan qoraynaa calaamadan ayaan qoraynaa ilaa 4 hadaan intaas qorno waxaan soo daawici doonaa أحمد كبلاو إلا حاول صدق عدونا هذا فيرنا فنلعب فير أحمد محمد حسن حاول مركز شيء عرفتي مركز أنا كده ومريسد وا إنك كيس هذا ليه لام فيري حاول يحكي جرت سدح هذا وحاول صدق عدونا إلا حسن مبدأ إنك مركز تو إنك عرفتي إن صدق عبعو كده ما يأخذ درسنا يسا مرة بعد عرفنا ساعة عاشوك إن صدق عدارنا وحنا عاش فورما دام تاي 5 أسيلين مركز إلا 5 علينا هاي 10 سنة صدق مركز ماشي محل مركز index range ayaa la dhahaa markaas oo lasoo daawacayo inta rabtid ayaad dooran kartaa halkan daaran waxaa dhigi karnaa 2 oo kale gelinaynaa ilaa intasaa lasoo daaci doonaa fiiri 2 oo ka bilaabana 0 1 2 xasan oo ka bilaabanaya marka halkan waa loo soo daacaa by index waxaa loo yaqaanaa range aa loo yaqaana halkaasa ku samayna marka casharkeena waxaa u gudbina qaybaha list waxaa u gudbi doonaa qaybaha kale data structurekeena waa inoo cashar kale